الله وبركاته رئيس وزراء ku-xigeenada wasiirada xildhibaanada jaalada Soomaaliyeed ee wadanka Kenya Nairobi waa salaamantiin halkan waxaan soo istaagay inaan soo dhaweeyo ra'yisul wasaaraha laakiin waxaan rabaa ra'yisul wasaaraha inaan u sheego inay maanta ay qorshaha in lagu kulmo isli laakiin shirkan ugu dheeraad awgeed aan ku shiri weyno isli laakiin waxaan ballan qaadaynaa insha Allah tacaala in marka dambe uu ra'yisul wasaaraha yimaado in jaalada Soomaaliyeed ee degan Nairobi uu kula kulmi doono xaafadda isli hadduu la yiraahdo midda kale ra'yisul wasaare maalmahan waxaa socdeen operationo ka jiray waddanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi shalay waxaan la kulmay jaalada Soomaaliyeed xaafadda isli aan kula kulmay waan la hadlay u sheegay in dowladda ku meel gaarka ay diyaar u tahay inay difaacdo aan kala hadlay dowladda Kenya kala hadlay in aan la abaarin dadka Soomaaliyeed oo jooga anigoo aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed halkaan degan ay aan dhihi karo badankooda ama aan dhihi karo boqolkiiba 99.99 ay yihiin dad amniga dhowra dad sharciga ilaaliyo shalaytana ay ballan qaadeen inay nagala shaqeyn doonaan haddana safaaradda iyo dowladda Kenya inay iska soo saaraan dadka yar oo aan dhihi karo aadka u yar oo mataqaanaa ku dhex jira ama nabadda nacab inay soo saaraan ballan qaadeen anaga hadda safaaraddan waxaan ballan qaadnay inaan ayagana aan difaaci doono la shaqeyn doono hadduu la yiraahdo maalmahan socda aan bilaaban doono diiwaangelin oo aragna in dadka Soomaaliyeed oo degan halkan la diiwaangeliyo kulli marka warku ma dheeraanayo mudan ra'yisul wasaare ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim runtii aad baan ugu mahadnaqayaa dadkii iska xilsaaray soo qabanqaabinta shirkan aanu ku kala warqaadanayno iskuna wareysanayno meesha Nairobi waa la yiraahdaa warna idinkuma seegana marka anigana lagooya ii taan u maleynaya halkan baan nimid runtii wafdi aniga iyo wasiirada ila socdaa waxaan u imid dowladda Kenya inaanu kala hadalno arrimo badan oo kulay naga dhaxeeya labada dowladood darisoo walaalo ah oo xiriir fiican ka dhaxeeyo sidii xiriirkaas loo horumarin lahaa guud ahaan iyo gaar ahaan arrimahan waayahan ka socday gobolada Jubbooyinka inaanu iska wareysano wada socotaan wafdi dowladda Kenya ayaa noo yimid 18 Oktoobar xamar noogu yimid wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaandhigga marka heshiiskii na dhex maray inaanu si horumarino kana si wada hadalno inta cotaano waxaa dhacday in adduunka noo yimid dowlad badan noo yimaadeen prime minister ka horeeya Turkey inuu yimid madaxweynihii Djibouti noo yimid madax kale oo dhan ay timid wadankii uu xoroobo si dhaqso ah oo la socotaan al-shabaab 6 August 2011 xamar bay ka baxeen dagaal ku socday muddo dad waxay yiraahdaan al-shabaab iska tageen al-shabaab faataxa kuma bixine khasab baa lagu bixiyay maaragta marka haddii marka security-ga wax iska bedeleen adduunkiina yimid waxaa la rabaa marka in opportunity-gaasan ka faa'iidaysano waxaan isleeyahay sidii la rabay ugamaanaa faa'iidaysan ama ha noqoto capacity xumo dhanka iyaga ah ama ha noqoto si kalaba noqotee waxaan moodaa inaana sidii la rabay uga faa'iidaysanayn laakiin insha Allah kulle waxa weeye isbedel yimid weeye oo dalkii iyo dadkii ku dhacay weeye oo loo baahan yahay in la ogaado taas marka waxaan uga baxayaa dhanka abaarta iyo wixii laga qabtay iyo chanceska iyo opportunitieska jira weeye waxaa hadda jira wadamo badan oo diyaar u ah inay Soomaaliya maanta wax la qabtaan wax kala qabtaan dhanka gargaarka dhanka dib u dhiska iyo horumarinta intaba diyaar u ah dhaqaalana diyaar u ah niyad sami wanaagsanna diyaar la ah anaga nagu xirantaa marka inaan ka faa'iideysano in kale markaan u soo gudbo dhanka siyaasadda waa la socotaanoo markii la soo saxeeyay Kampala koorka bacdi waxaan dhacay shirkii ka dhacay bishii September
afarteeda ilaa lixdeedii xamar la yidhahdo shirkii wadatashiga soomaaliyeed runtii shirkaasi dad badani isma lahayn waa u dhacaya marka soomaalida loogama baran inay intay isu yimaadaan wakti yani kooban oo mucayana intay wax ku heshiiyaan ay wax soo saaraan laakiin runtii shirki waa u dhacay iyadoo waliba ay tahay shir noocaasa oo kale oo soomaaliya ka dhacay kii u horreeyey way jiraan shiro waddan gudihiisa ka dhacay shirkii 93 ka dhacay Boorame oo lagu abuuray Somaliland shirkii ka dhacay 98 Garowe oo lagu abuuray Puntland way jiraan shirar ka dhacay laakiin localized ah oo maaragtay laakiin shir entitieski waddanka ka jiray ay isugu yimaadaan iyo dawladdii dhexe wuxuu kii horreeyay oo ka dhaca xamar waxaa timid Puntland waxaa yimid Galmudug waxaa yimid ahlu sunna wa jamaaca iyo dawladdii oo ka soo qayb gashay shirkaas waqti yar oo 2 beri gudo 3 beri gudahoodana waxaa ka soo baxay documentiga la yiraahdo road map-ka runtii road map-ku waxaan isleeyahay waa documenti aad u wanaagsan ciladihiisa waa yeelan karaa laakiin documenti waxa weeye annagana ka dawlad ahaanna gaargaraynaya oo na wadaya naguna khasbaya mar walba inaanu feejignaano oo waxqabad aan la nimaadno sababtoo ah wuxuu leeyahay waqti timelines buu leeyahay shaqo kastoo mucayan lagu qabanayo deadlinesna waa uu leeyahay marka la rabo inaan miid garayno mar walba marka taasi maaha inaan asxaan u samaynayno cid kale laakiin annaga laftiga iyaga wayna xirxiraysaa wayna korosiri garanaysaa macnaha waxa weeye waxaan ugu khasbaysaa inaan wax samayno runtii marka road map-kaasi wuxuu ka kooban yahay 4 waxyaabood saa la socotaan mid waa security-ga waa nabadgelyada midna waa reconciliation waxa la yiraahdo iyo political outreach oo ah dadkii ila nabadeeyo goboladiina la gaaro iyo dalka intiisa kale tan saddexaadna waa constitution-ka in waddanka loo sameeyo constitution loo sameeyo kan afraadna waa dawladnimo wanaag marka haddaan mid wax yar ka taabto dhanka nabadgelyada runtii dawladdu jeedaan wax badan baa iska bedelay dalkii xamar waa xor maanta 98% baa leedahay 99 meelo yar bay nimankan kaga dambeeyaan insha Allah waqti dhowna waxaan u marinayaa in inta yartoo harteen la israacin doono xamar ka bacdina aanu la isku dayo in la furo marka dhanka koonfurtana la soo aado dhanka waqooyigana la aado oo safety zone-ka dhulka yani nabadda la sii ballaariyo يعني xoreyntu dhanka kalena waa ka socotaa dhanka gado iyo koonfur galbeedna waa ka socotaa dhanka kale jubooyinkana waa ka socotaa marka insha Allah waqti aan dheeraan waxaan isleeyahay shabaab waa laga saarayaa xamar iyo dalka intiisa kala badan waxyaabaha ay ka mid tahay inaanu samayno road map ku qoran waxa weeye in la sameeyo waxa la yiraahdo National Security Stabilization Plan oo ah qorshaha xasilinta dalka qorshahaasi hadda waan sameynay ayadoo waliba la tashi la sameynayo dadka kale oo annaga wax nala wada entities-ka kale oo dawladda wax la wadaaga oo ay ka mid yihiin Puntland Galmudug ahlu sunna wa jamaaca iyagoo la tashanayo ayaa hadda la dhameystiray qorshahaasi isbuucii la soo dhaafay ayaa golaha wasiirada laga baaskireeyay haddana waxaa loo gudbinayaa baarlamaanka si ay uga doodaan ka bacdina ansixiyaan kaas ayuuna ku cad yahay qorshaha xasilinta dalka ama ha noqoto dhismaha ciidamada dhismaha booliiska maxkamadaha sharciga iyo kala dambeyntii halkaas ku cad yahay waa documenti runtii aad looga shaqeeyo weeye marka iyadoo ay socoto sifaynta dalka iyo xasilintu ayaa haddana dhismihii because waxa weeye runtii haddaanan waxa walba waxaa ka horeeya nabadgelyada waxaa u asal u ah rule of law sharciga iyo kala dambeynta isna waxaa lagu gacmo u ah inaan leenahay ciidamo xoog leh oo Soomaaliyeed oo waddankana nabadgelyadiisa difaaci kara booliis xoog leh iyo sharci iyo kala dambeyn dhab ah in la abuuro haddaan soo laabto dhanka constitution-ka iyana waxa weeye road map ay ku caddahay in constitution la sameeyo kole hadda waa la socota hore waxaa u jira qabyo qoraal laga soo shaqeeyey dhowaan waxaan magacaabay waxa la yiraahdo the committee of experts oo runtii ayana la rabo inay ka qayb qaataan
inay meesha hadda uu joogo laga sii ambaqaado, laga sii horumariyo, si degdegana loo sameeyo constitution dhab ah, constitution ku beesgaraysan shareecada islaamka, ka tarjumaya dhaqanka Soomaaliyeed, Somali customary law, Soomaalina leedahay, Soomaalina lagu dhaqi karo. Marka kaas inaan ka shaqeyno waqti macayinu leeyahay in lagu qabto, haddii waddanku xasilo oo la samayn karo census iyo referendumna markaasi uu noqdo dee constitution dhab oo jira, haddii kalena si kale un lagu ansixiyo uu noqdo marka interim constitution lagu howlgeli karo August 2012 haddii la yidhaahdo. Dhanka reconciliationka iyo political outreachka amase nabadeynta dalka iyo dadka in la gaaro ayaan laftigeeda horumar badan baanu ka sameynay. waa la socotaan anigu bishii September bilowgeedii waxaan tegay Puntland, wax yar ka bacdina waxaa yimid madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ka bacdina waxaan usoo gudbay Galmudug. runtiina maaragtay isafgarad wanaagsan ayaana dhex maray, heshiis baanu kala saxeexnay labada dowlad goboleedba dowladda la galeen. marka dhankaas waxaan isleeyahay horumar aan yani hore looga sameyn oo wanaagsan ayaanu ka sameynay. insha Allah dalka intiisa kalena waxaan jecel lahay in aanu degdeg u gaarno. actually aniga waxay qorshaysnaa Mareykan baan aaday si lama filaana, haddaana bixi lahayn qorshaygu wuxuu ahaa inaan aado galgaduud, inaan aado ayaa ii qorshaysnay. haddana waa aadaya haddii la yidhahdo waqti aan dheerayn. dhanka dowladnimo wanaagga good governance, anigu dhaqaalayahan baan ahay oo waxyaabaha waxaan ka qori jiray waxaa ka mid ahaa good governance-ka. runtii waxa weeye Soomaaliya waa ay duntay marka waddan uu civil war ku dhaco oo burburana, waxyaabaha ugu daran oo burbura waxaa ka mid ah institutionska, haykalka dowladnimo. marka taa haddii la waayo oo taasu ay burburto dowladnimo ma jirayso. marka runtii waxaan u baahannahay in waxaa yani jidka la dhisayo iyo sarta la dhisayo waxaa ka muhiimsan institutionska, foundation, yani dowladnimadu, good governance-ka dowladnimo wadaagga waxaa asal u ah good institutions, haykal dowladnimo oo wanaagsan. marka good governance laga hadlo badanaa waxaa laga hadlaa dadku ay soo qaadaan corruption ka in lala dagaalamo. Soomaaliya waxaa la yiraahdaa waa the most corrupted country in the world, yani waddanka adduunka ugu corruption badan. marka nima waxaa jira Transparency International oo way nala daba galeen, yani noma yimaadaan waddanka ma yimaadaan ma arkaan mali corruption ma jiro. of course yani corruption-ka waxaa la yiraahdaa lagu define garay, lagu micneeyaa waxa Ingiriis lagu yiraahdo the sale of public office for private gain. ina waxa weeye inaad iibiso xafiiska adigoo uga faa'iideysanaya dantaada shakhsiga ah. marka hadda xafiisyo badan ba malihin anagu hadda ka dowlad ahaan, laakiin lama inkirayo inuu jiri karo corruption. marka Transparency International mar waxay tiraahdaa Soomaaliya waa the most corrupted country in the world. saa la socotaan anagu hadda saan idin sheegay budgetka dowladda dhexe waa 900,000 ilaa 1 milyan iyo bar, yani bishu badxiran jirana 750,000 900,000 oo dollar, marka u badan tahay 1 milyan iyo bar. marka 1 milyan iyo bar haddaanu mushaar ka siino saaxiibaday 550 xildhibaan, haddii aanu ka siino dowladdii mushaarkeeda aan bixino, haddii aanu bixino current expenseski kharashkii yani oo wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo cunnada raashinka ciidamada qaarkood ayaan intaa ka bixinaa. marka corruption intee leeg ba meesha ka soo bixi kara.